kulan maanta ay Muqdisho ku yeesheen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo kulankii ay dhawaan yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya waxa ayna xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay ka soo saareen war saxaafadeed waxaana saxaafadda u akhriyay Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Dinaari oo kamid ah madaxda xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed kadib markay aragtay qiimaysayna baahida loo qabo difaaca dalka iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed waxay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda muxaafid iyo mucaarad ay u istaagaan difaaca dalka meelna iska dhigaan khilaafaadka yaryar ee dhexdooda isla markaana loo wada istaago mideynta dadka Soomaaliyeed labo in beesha caalamka sida qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka midowga Afrika jaamacadda Carabta IGAD ay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya midowga Afrika waxaan u soo jeedinaynaa inay ilaaliso heshiiskii ay dalalka Afrikaanka ku gaareen magaalada Addis Ababa sanadkii 1963 oo ahaa in la bedeli karin xuduudda gumaysiga uu dhigay dawladihii xorriyadda qaatay waxaan u soo jeedinaynaa oon ku adkaynaynaa dawladda Soomaaliyeed ee hadda jirta inay meel mariso go'aankii golaha shacbiga ee 8aad ee sanadkii 2009 oo cod aqlabiyad leh ku go'aamiyay in inta dalka Soomaaliya ay ka dhalanayso dawlad ay dadweynuhu soo doortaan inaan wax gorgortan ah laga geli karin xuduudaha Soomaaliya bad dhul iyo cir waxaan kaloo soo jeedinaynaa in qareenadii galay dacwadii badda ee ku metelaya magaca Soomaaliyeed wajigeedii koowaad inay dhameystiraan dacwadda wajigeeda labaad isla markaana gacan lagu siiyo gudashada xilkooda ugu dambeyntii xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay shacbiga Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan gudaha iyo dibaddaba ay ugu baaqaysaa inay u istaagaan oo ay muujiyaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan boobka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay badda Soomaaliya ay kula wareegto horta wixii la qariyo ama way qurmaan ama banaanka yimaadaan ilaa hadda wax la qariyay oo aan anaku ognahay ma jiro waliba waxa la wada hayo wararkoo dhan wararka iclaamka waaye ama meediyaha oo qaarna ay sheegayaan in lagu heshiin waaye qaarna ay sheegayaan in lagu heshiiyay oo kuwa Ethiopia ay sheegtay laakiin ilaa hadda ma jiro wax cadayn ah in ay dawladdu ay arintaasi heshiis ka gashay ilaa hadda ma hayno waxaan ku adkaynaynaa in ay arintaasi heshiis laga geli karin ilaa dawlad Soomaaliyeed oo shacbiga Soomaaliyeed ay soo doortaan aan la geli karin heshiis lagana geli karin dhulka cirka iyo badda taasaan cadaynayna aamusnaanta runtii way mudnayd in mar walba shacbigu waxay xaq u leeyihiin in laga hadlo shirarka caalamiga ee madaxdu ay ka qayb gasho markay soo noqdaan inay la hadlaan shacbigooda xaq ay ugu leeyihiin walina waa ka sugaynaa dawladda inay mowqif cad oo ay ka qaadato arintaas oo ay cadayso wixii ay kula kulantay arintii ku saabsaneed shirkii uu madaxweynaha kaga qayb galay Kenya Nairobi dhanka kale Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Dinaari ayaa isagoo ku hadlaya magaca xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxa uu baaq u diray ummadda Soomaaliyeed inay ka dhidiyaan in taaka kamida dhulkooda ay Kenya qaadato waxa uuna dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan warbaahinta iyo cid walba ugu baaqay inay arintaasi u kacaan sida ay u difaaci lahaayeen dalkooda sida la socotaan arintan markii aan kaga hadalnay shirkan jaraa'id waxay xarunta oo kale oo ay diyaarisay petition ama wax la yiraahdo bayaan qoraal ah oo aan dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba aan ku weydiisanayno inay qoraal ay qoraan oo ay arintaasi ku muujinayaan in ay raalli ka ahayn oo ay Soomaaliya ilaa la helo dawlad ku meel gaar ilaa la helo dawlad rasmi ah oo dadku ay soo doortaan in dadku Soomaalidu shacbiga oo dhan aanan laga geli karin wax wada hadal ah dhulka cirka iyo badda maxkamaduna ay socoto oo ay go'aan rasmi ah gaarto dadka Soomaalida meel kasto ay joogaan dibadda iyo gudaha waxaan ugu baaqaynaa in petitionkaasi oo xaruntu ay ku soo bandhigi doonto website-keeda la saxiixo oo lagu qoro magaca meesha qofka laga helo iyo telefoonkiisa petitionkaas marka uu gaaro number fiican waxaan u gudbin doonaa maxkamadda adduunka iyadoo dadka Soomaalidu meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda aan ka codsanayno oo weydiisanayno inay ku muujiyaan
in dacwaddaasi cid ka noqon karta aanay jirin oo ay aaminsan yihiin wixii maxkamaddu ay ka helaan sidaasoo kale dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa haddii loo baahdo in dhaqaale lagu bixiyo looyarada galaya dacwadda oo wajiga hore ku guulaystay in dadka Soomaalidu ay u ballan qaadaan in ay wixii qarasha ku baxaya arrintaasi inay bixin doonaan maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Som News TV magaalada Muqdisho